Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda Islaamka khaasatan Soomaalida aan walaalaha nahay waan salaamaya salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacaygu waa Ayuub Cabdirasaaq Xuseen. Run ahaantii qof walba adduunyadan joogo wuxuu leeyahay hami, wuxuu leeyahay rajo, wuxuu leeyahay muraad. Run ahaantii muraadka iyo rajada iyo qof walba hamigiisa waxa uu rumayn karo kaliya Ilaahayna abuurtay. laakiinse wax walba waxa lagu helaa qofka dadaalkiisa uu ku heli karaa hadduu Ilaahay u fududeeyo waay. Marka tusaale ahaan maanta codkayga waxaan u soo duubay YouTube aan furtay. YouTube-kaygu wuu cusub yahay oo muddo hal bil xataa ma shaqeynayo. Marka tusaale ahaan maadaama aan ku cusbaa YouTube-ka aniga raay ahaan qorshaan u furtay YouTube-ka ayaa waxay tahay laba siyaabood. midda koowaad in aan macnaha hadda Soomaaliya meel ka baxsan oo kale markii la joogo dadku waxay u yaqaanaan qurbaha ama wadanka dibadiisa oo kale. Run ahaantii anad Soomaaliya kama waramo laakiin waxaan joogaa adi qurbaha oo kale aan joogaa. Marka tusaale ahaan waxaan rabaa inaan soo bandhigo dhibaatooyinka Soomaalida wadamada qaar ku haysto iyo wadaninimo aan jeclahay inaan soo bandhigo. inkastoo dadka qaar xataa dhalinyarta ay xiiseenin wadanimo, dadka qaar waxay ku leeyihiin oo wadani macnaha wadanimo iyo wanaag iyo waxaas goormee laga tagay camal ha isku daalin waxyaalo kale oo comedy soo dhigay. Marka tusaale ahaan aniga ilaa hadda qalbigayga kama daalin in aan soo dhigo wanaaga iyo wadanimada iyo wadan jaceylka igu jirto. midda aan rabo inaan ila wadaagaa waxay tahay anaga waxaan ku noolnahay wadan ka baxsan macnaha Soomaaliya qurbaha kale aan ku noolahay. Marka hal guri waxaan ku deganahay tusaale ahaan ama qurbaha ama lagu degaa 4 qof oo kale. tusaale ahaan 4teenan qof macnaha waxaan u dhaqanaa sida hal hooyo iyo hal aabba leh. waxaana laga yaabaa inaan 4 gobol ka kala imaano Soomaaliya ama 4 bahjo macnaha aan kala imahay. Marka tusaale ahaan caalamka lagama yaqaano wax daarood la lahayo ama hawiye la lahayo ama dir la lahayo. caalamka oo dhan waxay noo yaqaanaan in aan nahay anaga Soomaali oo hal diin iyo hal wadan iyo hal luqad aan ka wada imaanay. tusaale ahaan hadda waxaad arkaysaa qof Soomaali ah oo la dhahay alla gabadhaas waa gabadh reer hebel leh. hadda ka soo qaad bagaari ayaa hadda qurbaha kale qof ku dhacaya ama dumar ha noqoto ama rag ha noqoto. ka soo qaad gabar gaari ku dhacay ninkii wadanka u dhashtay macnaha oo ajnabiga ah asal degneedeen markaa weydiiso dhaadaniyo gaariga maqlayo qof ku dhacayo kuma dhahayo abgaal ama ogaadeen ama majeerteen ama mareexaan kuma dhahayo. wuxuu ku leeyahay maamo Soomaaliya gaari ku dhacay. laakiin qof Soomaali hadaa weydiiso waxa laga yaabaa inuu ku dhaho niyo gabar habar gidir gaari ku dhacay ama gabar mareexaana gaari ku dhacay ama gabar abgaal. marka caalamka anaga waxay noo yaqaanaa inaan nahay Soomaali. hadda tusaale ahaan wadanka Mareykanka dad igu dhaamana way jirtaa laakiin aan isaan ku maqlay waa 52 dowladood. waa 52 dowladood oo isku tagtay. run ahaantii ilaa hadda inta qabiilka ka kooban yihiin cid taqaanta ma leh. Soomaaliya waxay u dhigmataa Mareykanka gobol ka mid ah. qabiilaadkeena waxa waa internetyadii, facebookyadii meel walba wada yaacayaan. waxaad arkaysaa dhalinyar ama dad u kala baxay qabiil internetka isku haysto. dadkii madaxda ahayd oo aqoonta lahaana waxay isku haystaan kursi iyo qabiil. ninkii laga af Soomaali badiyo ama macnaha wax adiga laga dadbato oo kale ah. run ahaantii kulay Ilaahay qabiilku wuxuu nagu soo saaray in isku aqoonsano nagu soo saaray in isku dilno. marka anaga waxaan nahay dad walaalo ah Soomaali ah oo hal luqad leh oo hal diin leh oo hal dalka wada imaaday. marka social media meesha dadka looga faa'iideyn lahaa wanaaga ama wadanimada. run ahaantii qofkii wanaag soo bandhigo ama wadanimo soo bandhigo ama Soomaali jecel soo bandhigo run ahaantii subscribe maba helaayaba. hadduu helana waxa laga yaabaa inuu 30 meelaas helo. laakiin qofkii waxyaalo kala soo dhigo oo qabiil ahayo ama qabiil amaano waxa laga yaabaa 600,000 oo comedy subscribe inuu helo.
Soomaalida hadda qofkii qabiil xayeysiiyo ama qofkii qabiil caayo bay subscribe u saaraan laakiin qofkii Soomaalnimo ku jirto oo nacab qabiilka run ahaantii subscribe soo ku helo ama ku soo caan baxay adagta saas darteed waxay keenaysaa dhalinyarta bulshada qof walba oo YouTube furto inuu dhaho Reehebel Landero waa Reehebel Langab waa run ahaantii Reehebel anaga caalamka nooma yaqaanaan run ahaantii qofka Soomaali markuu joogo wuxuu ku faanaa qabiilkiisa laakiin markuu Soomaali ka soo tago wuxuu ku faanaa inuu yahay Soomaali sababtoo ah wuxuu ogaanayaa nolosha dhabta ah oo ka jirto qurbaha macnaha qurbaha lagama yaqaano isaaq lagama yaqaano Mareyxaan lagama yaqaano dhulbahante lagama yaqaano ogaadeen lagama yaqaano habargidir waxaana loo yaqaanaa inaan nahay Soomaali bas marka tusaale ahaan maadaama dad walaalanahay social media maalmahan uu qabiil uu ka batay dadka walaalahayga run ahaantii aniga kulligood inta qof oo social media macnaha wanaag soo dhigto qabiilku raba ahaado aniga run ahaantii waan ku taageeraa oo waan jeclahay laakiin waxaan igu talinayaa hadda tiin dad walaalahayga oo islaam ah oo isku dal ah oo isku luqad ah oo isku diin ah in aan macnaha qabiilka ka hor imaano aan wadannimada u soo jeesano kulligeena magacayga igu sheegana waxa waaye Ayuub Cabdirasaaq Xuseen YouTube-keygana wuu ku cusub yahay hawada run ahaantii kulay aniga cid kale oo taageero aan ka sugayo ma jirto qof kale oo ajnabi ah macnaha aan subscribe ka rabo ma jirto kulay qof walba oo qabiilkiisa u support kare ana qabiil gooni ee ma lihi qabiilkayga waa Soomaali weyn u baahan aniga subscribe-ka iyo like iyo comment in liigu caawiyo mideeda kalena qof walba macnaha wanaag soo dhigo dhiirigelin ay u noqonaysaa subscribe-kiina iyo comment-giina qof walba haddii uu 10 qof gaarsiiyo ama asaga shakhsi ahaantiisa subscribe iskaga saaro run ahaantii qof walaalka laba goor oo internetka markaa isticmaalaysid daatadaada ama qadkaada meeshuu iska baxaya macnaha way ku socotaa marka ruux Soomaali oo walaalka hadda ku madax kor u soo qaaday inaad iskaga taageerto fiican tahay run ahaantii aniga dadka ku caan baxay YouTube-ka tusaale ahaan waxaan ka soo qaadanayaa Daahir Cali Sow Captain Ayuub CK Sharma Boy Socdaal dhamaan saxaabul internet macnaha saxaabul YouTube le dhanbo aniga run ahaantii waa labadeeda garbood waa walaalahayga waa dadkayga waa tolkayga waan jeclahay waan ku faanaa inay Soomaaliyiin anigana aan Soomaali ah dhibaatada u weyn oo macnaha marmarka qaar aniga aan la murkooda waxay tahay wadamada qaar anaga aan joogno waxayna weydiiyaan shacabkooda su'aalo ku saabsan arrimaha Soomaaliya marmarka qaarna jawaab waan u waayaa qofkii ay hortaagan Soomaaliya markuu iga wareysto xaaladeeda marka tusaale ahaan maxaa keentay aniga lacifnimo igu jirto ama awood darro igu jirto ma aha aniga dal waan leh laakiin dad ma leh sababtan dad u leena waxay tahay dadkayga waxay isku haystaan qabiil ee kursi ee qabyaalad ayaa isku dilaya maanta qof hadduu dhibaataysan yahay ama uu garab u baahdo waxa leeyahay tahay Reehebel xaggii joogan qofka intuu dhihi lahaa waa asaga garaankiisa wuxuu qofku u qaban karo inuu qabtaa fiican kadib uu Reehebelkaas ku raadiyaa marka run ahaantii dadka hadda magacooda soo magacaabay oo internetka ama social media kaalinta koowaad ugu jiro oo iga horeeyay kulay qofka ka horeeyay wuxuu u yaqaanaa inuu yahay ustaad macnaha ustaad waxa la lahaa qofka macalinka marka dhamaan kulligood asxaabul social media waa dad walaalahayga waa dad isku diin aan nahay isku deegaan aan nahay isku luqad aan nahay isku dalna aan nahay marka waxaan kula talin lahaa in ay soo bandhigaan dhibaatooyinka Soomaalida lagu hayo caalamka iyo xeryaha qaxootiga dhibaatooyinka ka jira ee qaabka Soomaalida loo dhaqmo meeshii ayaga iska qabsan lahaayeen oo hebel maanta muxuu soo dhigay hebel muxuu ku jawaabay hebel muxuu ka yiri hebel muxuu dhahay inta la dhihi lahaa marka waxa ka fiican in la soo dhigo wadaninimada iyo dhibaatada Soomaaliya haysato si aan uga baxno dhibka marka maasha Allah waa maasantiin aniga heerkan rabo iyo rajadeeda iyo wax walba u baahanahay Ilaahay gaarsiin karo balse qof walba kama maarmo dadkiisa ana dadkaygana waa Soomaali adinkaan ii baahanahay sida kor ugu qaadi lahaydana kulay Ilaahay garbaan igu siiyo maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan ummadda islaamka qaasatan Soomaalida
aan walaalaha nahay waan salaamaya salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaah. Magacaygu waa Ayuub Cabdirasaaq Xuseen. run ahaantii qof walba oo adduunyadan joogo wuxuu leeyahay hami, wuxuu leeyahay rajo, wuxuu leeyahay muraad. run ahaantii muraadka iyo rajada iyo qof walba hamigiisa waxa uu rumayn karo kaliya Ilaahayna abuurtay, laakiinse wax walba waxa lagu helaa qofka dadaalkiisa unbuu ku heli karaa hadduu Ilaahay u fududeeyo waay. marka tusaale ahaan maanta codkayga waxaan u soo duubay YouTube aan furtay. YouTube-kaygu wuu cusub yahay oo muddo hal bil xataa ma shaqeynayo. marka tusaale ahaan maadaama aan ku cusbay